الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول إلهي بام هذا إسكالا إسوك إنك أنا مانتي أنه إلهي كتاب كيسا إلى الدفاع عنه ديار نغني ومانتي واعدوا لهم ما استطعتم خجرنا ديار خجرنا هل كان وحل إلى جيت هذا مانتا هو استكثرنا وحل إلى هذا عربي نكي قوايا ديها لقوم مغلو وركين غرس بجوه الانترنت بين كشيء بين وركين ورحد وايه مانتا وركين وقوم جرو تبقى انت جوجا وبيش ورسنجير على ومانتا انا وعبد الله على عراء النقيب كاهي waxay u diyaar garowday iyadoo shacabkeedii ay maanta hubkan la soo istaageen waxayna u diyaar garoobeen inay diinka ilaahay ku difaacaan. Allahu Akbar! maantay ninka daaquud inuu maahan ka fidiye raba oo gabdhaha xijaaban oo raba inuu xijaabka ka dhigo mataqaanaa suuqdayna lagu galo xashiiska iyo baktiga iyo jaadka iyo inta ilaahay uusan raalli ka ahayn annagu maanta waa waxaan qoraga u qaadana waa intaas. maantay warsangili iyo waxaa dagaaloohaya cali diinlaawe iyo mataqaanaa xasan gurguurtay ciidamadii ay soo sireen oo calooshoodu shaqaystayaal ka ahay intaasaa maantana naka qabaa insha allahu tacaala adduunkana mataqaanaa hana dhegaysto annagu maantay waxaan u diyaar garownay oo hubka u soo qaadanay oon xoolahayna ugala baxnay oon maanta mataqaa beekaamyadan iyo arbiijada waxaan u gadanay oo intaas wuxuu kitaabka ilaahay in ka duunaha asad marka hadda dib dambo aad qabiil iyo burun aad dib aynu kugu celiyo aad inaxawaa inta degma ilaahay tawxiidkiisa sharaasarka looga xukunto maa inta imaano aan inta baabi'inaa mataqaana adduunka aan maraykan iyo mataqaanaa aan nooga mahadcelisa lana ma ogolaahayno ma taagno maantay mataqaanaa annagu haddaan nahay cumar iyo cabdalle عمر عبد الله سير عمي لابوتي ما يكرم غير ودسته أنا أقول إلهي غير ودسته إلهي ما قرب كيما وديار قروني نجيب فين كذا زمن كوي بسوي وأوجد يا عدو كسون غواي إلهي بتقنا أسقى نوع أرجوي إلهي ما نوشة وين جدنا لو بالغالبين إن عيال بيجوا ليساي والحقيقة على هاي سنة وركاسقاتها سومالي قاتها لمن كجارهان ورسنجل على يبي يا حاج علي أما معاوزين إسكو شيء dadka inta roga waa dadkii guryaha la yaqeen waa dadkii dhabayada la yaqeen shabaab iyo mataqaan maanta ma joogto wuxuu joogaa shacabkii oo istakacay anaguna mataqaan aan hor joogno nabadoon u ahay waxa afbarta gaariga roga ama beekaan wata ama aan ka wata iyo waa wasagidi waxayna u taagan yihiin sharaada islaamka ee difaaca. Allahu Akbar! waxay joogaan degmada tawfiiq oo loo yaqaano cali guud waxayna ka difaaci rabaan nimanka warsangiliya nin walba nimaa hor jooga tubaaka weyno mascalaha iga qabso dib u dib madaxa agoon kala faniin marabku soo ajarantay waa ku sigatay cumrigaan goorbay shaydaanimaa kugu ziyaadi rabta hadda maantay inta goortahay waa daawo doontaa warkaa insha allah haddii ilaahay doono si mataqaana wanaagsan u dhegayso إلهي وتوبكين مو توبكين ويش رجع الخوض الشيء أو عمري عبد الله عن طرف وبقته وأنا كافدنا إن شاء الله وقت مجاهدين وقربائنا بابا دخلت أنا خير الله بابا درب إن شاء الله ودي لا يدور رجع أتهاجن ورسنجلي عيد فوق قطعتي إلى متى أنا مالكش نجعله ورسنجلي هذا صادق أي ورجال البابيس يا دب دلو شو أنا بتو يا أتكلم مرة كوشينا بيان إن شاء الله تعالى كوم عاوزين كوشينا أنا بوجود إيه ولا أنا قال حسب إن شاء الله تعالى دي إلهي مرخاتها كله إن شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Somali Islamist militant group Al-Shabaab has reportedly released a video of a man they say is a Kenyan soldier captured during January's attack on a Kenyan base in El Ade, Somalia. In the video, the Kenyan soldier is seen talking about his life and how he joined the Kenya Defense Forces, while also pleading with Kenya's President Uhuru Kenyatta to withdraw the troops from Somalia. Media sources say that Kenyan authorities have never given specific details of how many were killed during the attack in El Ade, but Al-Shabaab initially had said they killed 100 soldiers, and later Somalia's president put the figure at 180. Kenyan troops are part of the African Union mission in Somalia, a force that has been supporting the Somali government in its fight against Al-Shabaab. Meanwhile, a Kenyan court has sentenced a member of the Al-Shabaab militant group to a total of 80 years in prison. Abdirazak Mukhtar, a 24-year-old car hire service operator, was sentenced to serve 20 years in prison for the first count on giving support to commission terror activities and another 10 years for each of the other 6 counts. The sentences will run concurrently.